بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ugu horeyn asxaabteeda qaaligaa kusoo dhawaada channelkayga Liila Kitchen. maantana waxaan idinla wadaagayaa cunto cusub. xalkan waxaan kusoo shubtay 2 qaado oo saliida, 2 xabo oo waaweyn oo basal cad aan soo jarjaray, kadib wax yar ayaan dabka saaray. wax yar markii ay soo yara shiilantay ama isku tagtay waxaan ku daray xawaajiyadii. waxaa la dhahaa bahaaraad saxiix ama sidoo qof u yaqaano waa qorfihii, dhagayari, geedo, waraqul qaar iyo waxaan kusoo daray hayl. kadib hadda waxaan kusoo shubay hilibka qofa intuu doono ayuu ka dhigan karaa. kadib waxaan kusoo daray malqaacad qasaaca, waxaan kusoo daray malqaacada yaroo filfila, malqaacada yaroo milaxa iyo malqaacad weyn oo waxaan kusoo daray barbarooni shiidana. kadib wax yar baan dabka ku daayay. hadda waxaan ku daray biyo diiran ama qandac ah. kadib waxaan dhigay ilaa 1 saac ayuu dabka saarnaanaysaa. hadda halkan waxaan noogu soo qaaday waa daqiiqdii ama cajiinkii aan soo diyaarinayay. halkaa waxaan ku haystaa 3 koob oo bura, malqaacad fixisa ah, malqaacad sonkora, malqaacad yariis oo milaxa, 2 malqaacadood saliida. waxaan ku haystaa koob sabaadiye ama caano garoor ama caano fadhi. kadib waxaan isdhex gelinayaa xoogaa baan isir dhex gelinayaa. halkaana waxaa igu diyaara biyo diiran, biyaha in yar baan kusoo darsanayaa. cajiinkana si fiican baan isoo cajiyaa. markastoo aad cajiinkaaga ama daqiiqdaada si fiican u xashto ama si fiican isku dhex geliso ama waqti aad siisana waa markasta oo ku soo baxdo si qurux badan ay kugu soo baxdo. maasha Allah tabaaraka raxmaan. hadda sidaas ayaan kusoo diyaariyey. waxaan ku xiran bacdii waan dhigayaa 40 daqiiqo ayaan dhigayaa 40 minute. hadda waxaan halkaa ku haystaa hilibkii oo neegay and salad weeyaan. wixii dusha lagaga cunay baan diyaarinayaa. halkaa waxaan kusoo diyaariyey geed salad aan kusoo jarjaray. halkana waa kaabashka inta doontaad ka dhiganaysaa. dad doonto wax yar baad ka dhigaysaa, dad doontana wax badan baad ka dhigaysaa. kaabashka halkaana kusoo jarjarayaa. kadibna waxaan ku xagsinayaa khiyaar. kanna waa khiyaar waan soo jarjarayaa isagana sidoo kale. ugu horreyn asxaabteeda qaaliga channelka kusoo dhawaada. channelku waa channelkiini. subscribe, like, share intaba. halkan waxba tamaantaa baan soo qaatay waan iga jarjaray. tii koowaad tii labaadna waan jarjarayaa. 2 midho tamaandhaa, xabad khiyaara, jeex kaabasha iyo geed salada intaasaan isku soo daray. hadda sidoo kale waxaan ku darayaa xabad barbarooniga akhtarka ayaan kusoo dardaray. wax yar aadna uun soo yaryaraynayaa. xagga waxaan ku hayaa xabad basal cada oo yar, iyadana sidoo kale aad baan soo yaryaraynayaa maadaama saladka dusha kaga darayo. halkan xabada ku diyaara waa kuwan waxaan ku darayaa cuntadii markaan soo diyaarsanay waatan. halka waxaan kusoo diyaarsaday 2 midho oo baradho ah, 2 midho oo kaarooto ah, xabad kuusa ah, kaasina waxa weeyaan barbaroonigii iyo bocorkii huruudaha, bocor gaduudow. waxaan ku daraa malqaacad yariis oo filfila. kadib waxaan sugayaa. halkan waxaan kusoo daray imika beans ama digirta akhtarka. saladkii wixii oo dhan baan isku wada geynayaa dhammaantood. tamaantadii wixii oo dhan baan isku soo wada darayaa. maasha Allah tabaaraka raxmaan. ilaahay mahad u sugnaatay. asxaabta qaaligaa ka faa'iidaystaan kala faa'iidaysano. channelka waa channelkii walaashiin soo dhaweeya. hadda waxaan soo diyaarinayaa cajiinkii. waan kala qaybinayaa. qaybna waxaan ka dhigayaa qayb caadiya oo dusha lagaga cuno, qaybna waxaan saarayaa waan ku daboolayaa bileedka weelkan cuntada kusoo diyaarinayo. hadda waan soo fidiyey. waa xabad keliya taimka tanaan fidinayaa. xabadaas fiican baa u fidinaysaa yaani kaa jilcinna. haddana waa tan khudaartii iyo alaabtii aan soo diyaarinay. maasha Allah tabaaraka raxmaan. aad iskugu soo karay oo soo jilcay oo biyo leh qoyaan weynaad ku dhigtaa ayaan halkan kusoo diyaarsaday. daqiiqdiina waan iga dusha kasoo saaray. kadib waan dhinacyada ayaan ka hagaajinayaa. dhinacyada markaan ka hagaajiyo waan ka jarayaa wixii dheeraada waan ka jarayaa.
dusha waxaan hadaba ka mariyey imika wax yaroo Nescafeya iyo caano ayaan dusha kasoo mariyey. Kadibna waxaan dusha kaga darayaa sinsinta cad iyo xabaasuud, intaasaan dusha kaga daray. kadibna ofintan geliyey 180 baan geeyey, waxaana ku daayay 10 minit. sidan bay soo baxday. maasha allah tabaarak raxmaan, ilaahay mahad u sugnaatay. nimco iyo nasteexana ilaahay ba iska leh, alxamdulilaah. sidaas ayay noogu soo baxday. maasha allah tabaarak raxmaan. waa kaas, halkaasaan hadda kusoo diyaarsanayaa. halkaasaan kusoo diyaarsanayaa marka dhammaantood halkaasaan kusoo diyaarinayaa. hadaba aniga saasaan kusoo diyaariyey. dhinaca waxaan kasoo saarayaa saladkii ama khudradii aan soo diyaarsaday. waa tan daqiiqii iyadana sidoo kale intii hadhay san baan usoo sameeyey. saasay diyaar ku tahay. aad iyo aad baad umahadsantihiin asxaabteyda intii hore channelkayga ku xidhan iyo inta kusoo xidhan doonta. insha allah waxaan idin leeyahay soo dhawaada aan wax kala faa'iidaysano. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.